maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad lagu soo oogay dilkii magaalada Muqdisho loogu geystay gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. Guddi hore loogu xil saaray baaritaanka gudoomiyihii hore ayaa maxkamadda horgeeyay cadeemo la xiriira sida uu dhacay dilkii gudoomiyihii Hodan. Xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Jenaraal Cabdullaahi Buule Kamey ayaa hore u sheegay in dilkii loo geystay Allah u naxariistay Cabdixakiin Dhagajuun uu ahaa mid uu dhacay si ula kacayna ku ogaadeen baaritaankii la sameeyay. qof in ka badan dambi ay wada jir u galeen taasna maxkamadda hortay nimankan dambiga inay wada galeen nin walba kaalinta wax ku lahaado waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahin ay keenaysaa markay maragga dhagaysateen hal shakhsi kamida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafo oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay geliyeen garmaqalka dhanka ka ahaa 7 eedeysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedeysanaha maqana baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudeynay hada uma santiin Allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun ayaa 21kii bishii Janaayo ee sanadkan waxaa lagu dilay bartamaha magaalada Muqdisho iyadoo dilkiisa ay ka dambeeyeen ciidamo booliis ah. Dhagajuun ayaa la dilay habeen saqdhax ah xilli uu kormeer ku marayay isgooska Jidmareexaan ee magaalada Muqdisho. shaacinta inay bilaabatay gudagelida dacwadda ayaa ku soo beegmaysa maalmo kadib markii xubno ka tirsan bulshada uu ka soo jeedo marxuumka ee warbaahinta ka sheegeen inaysan weli helin cadaalad rasmi ah. qaarijinta marxuumka oo timid saacado kadib markii uu wadanka Turkiga uga soo laabtay howlo caafimaad markii qarax uu ku dhaawacmay. kiiskan oo u muuqda mid ka duwanaan doona dhacdooyinkii hore loogu beegsaday mas'uuliyiin ama saraakiil ciidan kuwaasoo guddiga loo saaray baaritaankaas ee wax natiijo ka soo bixin walow wax isbedeli karaan haddana xukunka maxkamadda ayaa la dhowrayaa. Faa'ise Cabdi Warsame, warbaahinta Nation.